caajis, meel iska fadhi, cadowga ugu weyn ee wax soo saarkaaga. Ma dareentay, ma ogaatay inaad marar badan dib u dhigto shaqo muhiima oo aad u baahan tahay in aad qabato? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, waxaa laga yaabaa in aad ku jirto cadowga aamusan ee ugu weyn wax soo saarkaaga dib u dhigaya, kaasoo ah caajiska. Haddii aad rabto in aad guushaada la wareegto maanta wixii ka dambeeya si joogto ah, haddaba nagu soo biir podcast-keen. Ku soo dhawaada dhammaantiin Go For It Podcast. Maanta waxaan eegi doonaa, hoosta ka xaqiiqi doonaa caqabadaha ugu waaweyn ee shakhsiyadda iyo qofka hortaagan qofka xirfadda doonaya in wax doonaya ay ka mid tahay caajisku ugu weyn yahay. Haddaba caajisku waa sababaha, waxaa la odhan karaa waa sababaha ugu waaweyn ee run ahaantii qofka uu ku lumiyo waqtigiisa ugu muhiimsan kuna guuldareysto maadaama uu caajihayo in uu gaaro yoolkiisa, higsigiisa. Cilmi baaris la sameeyey ee muujinaysa in 40% dadka sida joogtada ah run ahaantii ay badanka caajisku u hayo mid caajis ku jiro, kuwa wax badanka waxaa laga yaabaa inay si hoos u dhigaan ama hoos u yareeyaan wax soo saarka shakhsiyadeed. Run ahaantii haddaba maxaa samayn karnaa haddaba si aan uga adkaano caajiskan? Hadda waa inaan isla fahanaa waa maxay caajisku. Caajisku waa xaalad maskaxeed iyo jir ahaaneedba, taasoo keenta inuu qofku shaqo muhiima oo u baahan in la qabto dib u dhigo, waqtiga ku habboonayd dib u dhigo ama uu qaban waayo. Waxa uu run ahaantii caajisku ka dhashaa culayska maskaxda ama xiisa la'aan hawlaha gaarka ah, in qofku xiisayn waayo, danayn waayo waxa uu qabanayo. Cilmi baaris la sameeyey haddaba oo jaamacadda Harvard laga sameeyey ayaa sheegtay in shaqaalaha ama dadka badanaa caajisku uu ku badan yahay wax soo saarkooda waxay hoos u dhacdo 30%. Maadaama qofku uu caajisan yahay way yartahay wax soo saaro, taa ay muujinaysaa. Marka aan fahanno haddaba wuxuu caajisku yahay, waa inaan ogaanaa sababaha keena haddaba. Sababaha qodobkeena labaad waa sababaha caajiska uu keeno oo run ahaantii wax soo saarkeena hoos u dhigi kara. Waa maxay ka mid yihiin? Waa 3 caqabadood ugu waaweyn. Kow waa cabsi, qofka oo ka cabsada hawlaha uu qabanayo, maamul xumo, waqtigiisa oo si fiican u maareyn waayo, iyo xiisa la'aan, qofka oo danayn waaya wuxuu qabanayo. Haddaba cabsidu waxa weeye waa qofka ka cabsada guuldaro ama dhaleecayn, dadka maxay ku oranayaan waxa ka cabsada. Talabaad maamul xumo waxa weeye qofka run ahaantii shaqooyinkiisa si fiican u habeyn waaya, waqtiyaasha loogu baahnaa, waqtigu bilaamayay, waqtigu dhammaanayay, taa baa la dhahaa maamul xumo. Xiisa la'aantuna waxa weeye waa qofkii doonayba hawsha inuu ku dhiirado, inuu qabto, inuu istaago, inuu u kaco. Waxaa la sheegaa qofka wuxuu shaqeyn 9 saacadood ayuu shaqeyn karaa ka soo qaada. Haddaba hadduu qofku ku dhiirin wuxuu qabanayo, waxaa la sheegay qiyaastii 25% wax soo saar ma yeelanayo, waxtar ma yeelanayo wax soo saarayo. Haddaba mudane marow, haddaan isla fahanay maxaa dhacaya haddii aan caajisku run ahaantii oo noqdo caado joogto ah. Qodobkeena saddexaad waa saameynta caajisku ku leeyahay shakhsiyadaada iyo noloshaada guud. Caajiska joogtada ah wuxuu run ahaantii burburin karaa shakhsiyadaada qofeed, qorsheyntaada mustaqbalkaaga. Haddaba maxaa keena? Kow, waqti lumis uu kugu samayn karaa, dhiirigelin la'aan baa hela dhiirigelin kuma dhiirinaysid inaad hawlaha qabsatid. Cabsi joogta ah qofku yeelanaya oo ku saabsan guuldaradooda. Daraasad laga sameeyey shirkad Maraykan ah ayaa muujisay in shaqaalaha lumiya wax soo saarkooda sababtoo caajisku awgeed ay ku lumiyaan in shirkadaha ugu khasaaraha badan waxay noqonaysaa shirkadda inay noqoto $500 bilyan sanadkiiba. Haddaba mudane, intaas la fahanay, laakiin xalku muxuu yahay? Xalka ugu muhiimsan muxuu yahay? Qodobkeena afraad waa sidee looga bixi karaa caajiska? Haddaba sidee uga bixi karnaa caajiskan hawlahaaga hoos u dhigaya iyo wax soo saarkaagaba? Waxaa jirta 4 qodob muhiim ah jirta. Kow, qofka oo sameeyo waxa loo yaqaano
kala horumarin qofka uu sameeya kala shaqooyinkiisa muhiimka uu kala horumariyo saameynta uu sameeyo liisas howleedkiisa maalinlaha uu kala hor wixii uu muhiimsan talabaad qodobka labaad waa qaybinta ahayd hawshiisa haddii qofka oo dee kala hormarinaya soo isticmaalaya application lagu yaqaano qamaduru iyo qofka oo raacanta waqtigiisa yaryareynayna kan waqti inta qabanaya waqtigiisa nacam si fiican u habeynaya ta saddexaad waxa weeye waa qofka oo rahantii xooga saaraya dhiirigelintii in qof ku dhiirido inuu sameeyo wuxuu doonayo inuu sameeyo halabuur maxaa loo yaqaano naftaada shaqo inuu naftiisa ku adkeeyo inuu shaqada qabato ku dhiiriyo si wax soo saarto iyo afarta afraad ka fogow waxaa loo yaqaano social media kaa cadow kuwa wax soo saarkaaga sida telefoonkaaga baraha bulshada tusaale ahaan haddaan kula wadaago dadka runaantii sida isku daya inay farsamada baalmuddo isticmaalaan maalin waliba isticmaalaan waxay runaantii u kordhin kartaa sababtiisu inay u nidaamiyaan ay wax soo saarkoogana ay gaarsiiyaan boqolkiiba 20 haddaba haddaan intaasna fahamnay marka aan ka baxno caajiska maxay tahay faa'iidooyinka ka helno haddana caajiskii agarnaysa looga baxayo qaabka loo waxyanayo haddana maxay yihiin faa'iidooyinka aan helayno qodobkiina shanaad waxa weeye waa faa'iidooyinka guusha ah aan ku guulaysanayno marka aan ka guulaysano caajiskeena waa saddex baa u kala kacaysaa kow qofku wuxuu ka helaya wax loo yaqaano waxaad helaysaa waqti dheeraada hadda waqtigaada astraaqa u diiday oo caajisna u diiday waxaa helaysaa waqti dheeraada aad ku qabato howlaha muhiimka aad doonaysid labaad waxa aad dareemaysaa kalsooni dheeriya runaantii qof markuu waqtigiisa buuxo uu shaqaysanayo wuxuu loo yaqaan dareen kalsooni ah ta saddexaad waxa weeye waxaad gaaraysaa waxa loo yaqaano howlahaagii iyo muhiimadaadii yoolkaagii si fudbad iyo si hufan oo cad baad ku gaaraysaa waxaad doonaysa tusaale ahaan waxaa la sheegaa boqolkiiba 9 dadka go'aansada in ay ka baxaan caajiska ayagoo sheega in ay noloshooda shaqada iyo tamidka shakhsiyadeedba si weyn ay u hagaagtay ay dareemayaan haddaba inta haddaan la fahanay haddaba sidee ayaa loo joogtayn karaa caadooyinkaagan wanaagsan dabeecadooyinka haddaba fahanay saa u adkaanayno haddaba sideen u joogtayn karaynaa maalin walba haddaba sida ugu fiican loo joogsan wax soo saarkeena oo wax aan uga horumar karayno waxa weeye waa isbeddelka joogtada ah waa muhiim wuxuu u baahan yahay sugan saddex qodob ka hooseeyo kow qofku inuu yeesho wax loo yaqaano dulqaad ha filan isbeddel joogtaa mar waliba nacam qofku dulqaad inuu yeesho kow talabaad tababar joogtaa qofku waa inuu formaation meelaha siduu waqtigiisa uga faa'iido la socodka horumarkaaga guulahaaga qofku waa inuu sii kordhiyo ta saddexaad waxa weeye barashada qofku waa inuu barto sida loo isticmaalo social media haddii aad horay maxaanti u guuldaraystay waad kartaa inaad guulaysato sababtoo haddaad si fiican isku nidaamiso joogtaysooso waqtigaadan waxaad ku noqonayaan run ahaantii qofku hab maamulka hagaajisatid bedeshis qaabkii maamulkaaga hore kan dambiso inuu isku noqon waxaa dhanba ku fudanaya haddaba gabagabadii aan u soo laabano casharka mawduucina maanta waa muhiim qofku inuu barto inaad raahdo muhiimaad inaad wax ka baratid xashigan caajiska sababtoo ah waxaad noqonaysaa qof hawlkara wax soo saarkiisu fiican yahay horosooda waxaan soo gaarnay gabagabadii mawduuceena gofara podcast ee maanta ahaa caajiska oo ahaa waxaa la dhahaa caajisku waxa weye waa aamusane ugu weyn ee dib u dhigaya toosaarkaaga haddaba caajisku waa cadow muuqan waa cadow aamusan waa cadow muuqan war kale balse si weyn u saameynaya noloshaada wuu aamusan yahay balse laakiin saameyn buu ku leeyahay noloshaada haddii aad maanta go'aansato in aad lahaanta la dagaalanto la difaacanto waxaad noloshaada u horseedi kartaa isbeddel weyn lahaantii taan waa la muujiyey samee naftaada qorshe cad ka fogow waxaa dib kuu dhigaya halo yaqaano dib u dhigista lahaantii xooji wax soo saarka yoolalkaa kugu dhibiranaya haddaba xasuusnow horumarkaagu wuxuu ku jiraa go'aamadaada iyo go'aamadaada aad qaadato haddaba horumarkaaga wuxuu ku jiraa waa go'aamadaada maanta aad qaadato run ahaantii waxaan rajeynaya si fiican uga faa'iideen mawduucina maanta ahaa hayloobin inaad si fiican mawduuca soo socda aad nila wadaagayo aad la socotid waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo